الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى بني آدم كوحو أبو ري وأدونك الله كاني إلا امتحانه oo la kala saaro lagu imtixaano wanaaga iyo wax wanaagsan ee la siiyay lagu imtixaano sidoo kale xaaladda adag iyo duruufta adag ee uu marayo lagu imtixaano shirada iyo xanuunka lagu imtixaano faqriga iyo baahida lagu imtixaano xoolaha iyo qinaha lagu imtixaano xoogga iyo awoodda lagu imtixaano dacfiga iyo tabardarrida lagu imtixaano xaaladihiisa dhammaanteed. allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay in aan labada xaaladoodba ku imtixaananahay. wanabluukum biاlshari wاlkhayri fitna wabalownaahum biاlxasanaati wاlsayi'aat. haddii aad xaalad wanaagsan ku jirtana waad imtixaanantoo waa lagu fiirsanaya bal saad u dhaqanto. xaaladdu hadday kaa liidatana waad imtixaanantoo waxaa la fiirinayaa bal saad u dhaqanto. natiijada imtixaankaa ka soo baxa unbaana wax lagu qaybsanaya. ninkii imtixaankaa ku dhacayna adduuniya aakharaba waa khasaaray. ninkii imtixaankaa ku baasoo ku barmoosana adduuniya aakharaba waa liibaanay. adduunkani marka saasaan ugu imtixaanannahay awaamirta rabbi, sharcigiisa, takaaliifta, nicamka iyo muxuu ahaayey dhibaatooyinka intaba xaaladeennu waa xaalada imtixaan. natiijada imtixaankaasna waxaa la qaybin doonaa iyo abaalgudkiisa adduunkana waxbaa la soo hormarin, laakiin qaybtiisa rasmiga aakharay dambaysaa. halkaasaa laysku doonsiin doonaa nin walba natiijadiisii imtixaanka iyo abaalgudkii ka dhashay. intaan nool lahayse imtixaankaasaan dhex dabaalanayna. haddaba suuro ka mida suurooyinka nabigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, iyadoo aad u fara badan tahay qur-aanka kariimka inuu arrintaa ka hadlo oo ina dareensiiyo. axaadiista nebigana sal alla alay wasalam iyaduna aad uga hadashay ujeeddada muhimka ah si aan u fahanno oo aynaan u garamarin. iyadoo nusuusta noocaasi aad u fara badan tahay ayaa haddana waxaynu soo qaadanaynaa xadiid cajab badan oo nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inoo sheegay. xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey. waxa uu rasuulku leeyahay sal alla alay wasalam, 3 nin oo waxaa jiray ummaddii inaga horraysay oo reer bani israa'iil ahaa. 3da nin aafay qabeen, mid walba dhibaataa gooni u haysay, musiibo gooniya baa haysatay. 3dani mid ka mida cudurka baraska la yidhaahduu qabay ee jidhka caddeeya. midka labaadna timihii madaxa ka buubay oo madax cad iyo timo la'aan buu ahaa. midka saddexaadna nin indhool ah oon indhalahayn oon waxba arkaynin buu ahaa. 3daa nin buu alla damcay tabaaraka wa tacaala oo doonay inuu imtixaano. imtixaankoodu siduu u dhacay u fiirso. malag baa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala. malaggii wuxuu ugu yimid 3dii nin suuro bini aadam buu ugu yimid, nin caadi ah yuu iska soo dhigay. ilaan allah tabaaraka wa tacaala malaa'igta wuxuu awood u siiyey haddii rabbigood u idmo tabaaraka wa tacaala inay suuro aadame ku imaan karaan oy ruuxa ugu imaan karaan. suuro bini aadam buu ugu yimid. wuxuu u tegey ninkii baraska qabay. wuxuu ku yidhi, wax aad hesho ama lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay? maanta wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay? markaasuu wuxuu yidhi, waxaan ugu jeclahay midab quruxsan iyo jidh quruxsan iyo in ay dhaafo iga tago xanuunkan baraska ah
ee dadku ugu qurunsadeen dadkii baa iliitay meeshaan imaado waa laga cararayaa waa la yasayaa mujtamacii baa layga takooray xanuunkan in ilaahay iga qaado midab quruxsan aan helo wax maanta kaasaan wax walba ugu jeclahay wuu masaxay oo gacantuu mariyey malagii waa bogsooday oo wixii oo dhan waa ka tegey jir quruxsan iyo midab quruxsan baa la siiyey intaa markii la isugu daray baa wuxuu ku yidhi xoolana maxaad ugu jeceshahay war wax sheego markaasuu yidhi geel baan ugu jeclahay waxaa la siiyey hal 10 sid ah bishii 9aad bishii 10aad ilma sida yani wax way dhalmadeedii baa dhow waa xilliga geelu ugu qaalisan ayaa la siiyey hal riman oo bisheedii 10aad ku jirta guddoon baa la yidhi intaa markuu u dhiibayna wuxuu ku yidhi allah ha kuu barakeeyo waa isaga tegey ninkii timuhu ka buubeenoo timala'aantaha buu u yimid wuxuu ku yidhi war wax lagu siiyo maxaad ugu jecesha wuxuu yidhi waxaan ugu jeclahay in timihii la ii soo celiyo timo inaan yeesho cudurkan timala'aanta ahee dadku igu dhibsadeenna inuu ilaahay iga qaado asagana waa masaxay waxaa loo soo celiyey timihiisii timo quruxsan ayaa madaxa loo saaray kadibna wuxuu ku yidhi xoolo maxaad ugu jeceshay lo'daan ugu jeclahay neef lo ah oo isagana riman sac dhalaya ayaa la guddoonsiiyey oo la yidhi qabso waana loogu duceeyo waxaa la yidhi allah kuu barakeeyo waa isaga tegey indhoolkiibuu u yimid wuxuu yidhi war maxaad ugu jeceshaa wax lagu siiyo wuxuu yidhi in ilaahay indhahaygii ii soo celiyo oo wax kala arko dadka inaan arkaan rabaaye ilaahay araggaygii inuu ii soo celiyaan wax walba maanta ugu jecla asagana waa masaxo gacantuu mariyey oo markiiba araggiisii baa ilaahay u soo celiyey markaasuu siduu rabay wax kala arkay wax u kala baxeen xoolo maxaad ugu jeceshahay baa la yidhi adhigaan ugu jeclahay waa neef adhi ah oo lamaan oo wata ilmihiisii wata ayaa isagana la guddoonsiiyey qabsaa la yidhi allah kuu barakeeyo waa isaga tegey imtixaanka qaybtiisii hore saasuu ku dhammaadayoo cudurradiina waa layska saaroo caafimaad iyo qurux baa loo baxay xoolana waa layska dharjiyey kadibna ninkii neefka geelee 10 sidkaa la siiyey hasha riman la siiyey hashii waa ka dhashaday way tarantay ilaa geeliisii uu gaadhay tog dhan iyo dhul dhan geel daaqahaya ayaa hashii ka dhashay kii neefka lo'da lahaana sici waa u dhalay waa tarmay lo' fara badanoo tog dhan buuxinaysu isaguna yeeshay kii indhoolkaana sidoo kale ridiisii waa ka dhashaday ridii neefka wadatay isagana waa u tarantay markaasaa waxay noqotay tog dhan inay buuxisay saddexdoodiioo sidaa u laban yaa oo nin walba tamashleynahay oo caafimaadka ku tamatucay oo xoolo ka dheragsan yahay ayaa imtixaanka qaybtiisii labaad ku bilaabatay isla malagii laftiisii baa u yimid suuradii buu ugu yimid qaabkiina waa ugu yimid ma suuradii markii hore ee isagu u imaanayay uu lahaabaa waa suuroobi kartaa mise nin walba suuradiisoo kale ugu yimid kan oo indhahala suuradiisoo kale kan muxuu ahay timuhu ka buubeen suuradiisoo kale ayadana waa suuroobi kartaa suuradiisii iyo hay-addiisii buu ugu yimid markaasuu wuxuu ku yidhi kii waxaa lagu soo hormaray baraska qabay wuxuu ku yidhi nin miskiinaan ahay socotana waan ah jidkii iyo asbaabtii iyo nooligii baa iga go'ay aan jidka ku mari lahaa ee waxaan ku weydiisanayaa oon kugu weydiisanayaa allaha jidhkan quruxsan ku siiyey xoolahanna ku siiyey allaha magaciisa waxaan kugu weydiisanayaa hal neef oo geel ah oo safarta u kaalmaysto meeshaan u socday ku gaadho sahayda iga bixi war hal neef oo geel ah
geel dhan oo tog buuxinaya muxuu ka dhan yahay markaas wuxuu ku yidhi adeer xuquuqdu waa badan tahay geelan xuquuq badan baa lagu leeyahay aniga iyo geeloon hana fiirinine laakiin geelan xuquuq badan baa saaran raalli ahow kaciskata socodkaaga wado meeshaad wax ka helaysa ka hel markaasuu wuxuu ku yidhi warniyo inaan ku garanayaa baad moodaaye ninaan garanayaad u eg tahay miyaadan baras qabi jirin oodan faqiir ahaan jirin oo ilaahay xoolo ku siinin baraskiina kaa daaweyn markaasuu ruuxa sheegaysa xoog ma jiray dhaaf xoolahan aad arkaysa buu yidhi aniga iska dhaafe kacab ka awow rag waaweyn baa kala dhaxlay buu rag waaweyn yaa odayaal oo sharaf leh baa xoolahan soo kala gaadho ay ka soo jeedaane warkaad akhriyaysa bannaanka la aad buu ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi haddaad run sheegayso warkaad sheegayso run yahay sidaad ahaan jirtay allaha kaa dhigo maxay tahay macnaheedu xoolahana allaha kaa qaado baraskiina allah kugu soo celiyo waa isaga tegey ninkii waxaa loo yimid timuhu ka buubeena aqrac ahaa wuxuu ku yidhi warniyo socotaana sahaydina waa iga goodo waxaan ku weydiisanayaa allaha tabaaraka wa tacaala timaha quruxsan ku siiyey xoolahana ku siiyey waxaan ku weydiisanayaa hal neefoo lo ah oo aan safarta u kaalmaystoon jidka ku maroon sahay ka dhigto intaa keliya isii sidooda kor isaguna ku jawaabo wuxuu yidhi adeer xuquuqdu waa badantay raalli ahow war miyaana ku garanaynin ood hebel ahayn war ninkii nooca ahaan jiray soomati inaan ku garanaya aad moodaaye maya isma garanayn xageed ugu aragtay yaa war xoolahan odayaal iyo ab baan ka soo gaadhay raalli ahow haddaad saad sheegayso ay run tahay ilaahay sidaad ahaan jirtay ha kaa dhigo isagana waa ka tegey indhoolkii baa loo yimid oo adhi badan u daaqahay wuxuu ku yidhi niyahow waxaan ahay nin miskiin ah socotona waan ahay sahaydii baa iga gooday socod ma jiro maanta allaha ii kaalmeeya kadibna adiga oo i gacan qabta mooye meel gaadhid iima sugnaan meel lama gaadhi karo ee allaha tabaaraka wa tacaala araggaaga iyo indhahaaga kuu soo celiyey dartii waxaan kugu weydiisanayaa iyo magaciisa waxaan kugu weydiisanayaa hal neefoo adhi ah oo aan sahay ka dhigtoon safarta u kaalmaysto hal neefoo adhi ah ninkii indhoolkaa wuxuu yidhi niyo horta indhool baan ahaan jiro waxba ma arki jirin ilaahay baa ii soo celiyey araggaygii faqiirna waan ahaan jiray ilaahay baa xoolahan aad arkaysa i siiyey sidaas daraaddeed xoolaha wax alla waxaad rabto ka kaxaysuu yidhi hal neefa soomaada codsanin war hal neefa iska dhaafay intaad dhex gasho intaad doonto kaxayso intaad doontana ka tag ilaahay baan ku dhaartee maanta inaanan kugu dhibaynin xoolo aad ilaahay dartii u kaxaysatood meeshaa ka kaxaysay kuguna dhibi maayo kuna weydiin maayo khiyaar baad leedahay kaxayso imtixaankii waa dhammaaday soo maaha natiijadiisii iyo shahaadadii hoo marka iyo abaalgudkii hoo wuxuu ku yidhi war saddexdiinaba waa laydin imtixaanay horta xoolahaaga hayso buu yidhi yaa xaaladdu waa caddaatay xoola kaama rabe horta xoolahaaga hayso laakiin saddexdu ahaydeena waa laydin imtixaanay labadaadii saaxiib ilaahay baa u cadhooday adigana ilaahay baa raalli kaa noqday yaa labadaadii saaxiib ilaahay baa u cadhooday maxaa yeelay ilaahay nicmadiisii way inkireen cudurkii laga saaray way dafireen xoolihii la siiyey way dafireen way ka shukrin waayeen kaabir can kaabir bay u saareen allihii siiyey intay garab mariyeen baa waxay yidhahdeen abiya awoobaan ka dhaxallay xuquuqdu waa fara badantay iska tag bay jawaabtoodii noqotay cadho ilaahay baa ku habsatay tabaaraka wa tacaala amaa adiga allah raalli kaa noqday nicmadii baad qirtay wixii lagu galay baad ogolaatay waad xustay waad ka abaalgudday oo waad bixisay ilaahay baa raalli kaa noqday tabaaraka wa tacaala qisada cajabta badan ee nabigeenu bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh duruus badan baa ku jirta duruusta ku jirtaay waxaa ka mida kow horta nolosha waa imtixaananahay faqiirku waa imtixaanan yahay haniguna waa imtixaanan yahay ka jiro waa imtixaanan yahay ka caafimaad qaba waa imtixaanan yahay
jaahilku waa imtixaanaya caalimkuna waa imtixaanaya madaxdu waa imtixaanan tahay raciyaduna waa imtixaanan tahay raggu waa imtixaanaya dumarkuna waa imtixaanaya imtixaan weeye noloshani ciyaar ma aha afaxasibtum annama khalaqnaakum cabathan ciyaar laynooma abuurin ee imtixaankaasaan ku jirnaa imtixaankaasi haddii aad ku baastana natiijadiisu waa ilaahay ridihiisa haddii aad imtixaanka ku dhacdana waa ilaahay cadhadiisa ninkaana ilaahay raalli buu ka noqday laana imtixaankii buu ku baastay labadanna ilaahay baa u cadhooday maxaa yeelay imtixaankii bay ku dhaceen sida adduunka loogu cadhooday bay aakharana naar ilaahay ku gelayaan tabaaraka wa tacaala waxaa kaloon ka qaadanaynaa qisada cajabta badan bini aadamka iyo dabeecaddiisa bini aadamka iyo dabeecaddiisa waxaa dabeecad u ah in uusan xusuusanin wuxuu soo maray iyo wuxuu ahaan jiray laakiin uu ku xisaabtamo un maanta wuxuu yahay sidoo kale uusan fiirinin maxaana imaan karood noqon kartaa war maanta waad ladanta oo waad caafimaad qabtaa intaasuu ku xisaabtamaya ayadaasuu wax ku dhisayaa shalay wuxuu ahaa wuu halmaamay berri waxay noqon doontana waa halmansan yahay xaaladaasu waa calooshiisa la ciyaar waa indha ku garaadla weeye maalinkaa wixii ka hor muuqda ayuu ku xisaabtamaa laakiin wuxuu hor ahaan jiray waa halmaamaya maanta waxaa aad u badan oo laga yaaba in badan oo idinka mida inaad aragteen ama ayba jiraan oo aad u badan yihiin dad fuqara ahaa oo masaakiin ahaa oo baahnaa oo dhibanaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala khasaa'intiisa u furay oo xoolo yeeshay oo shalay ninkii shalay aan ahayn ninkii dabeecadda macaana ma ah ninkii masaajidda lagu arki jiray ma ah ninkii masaakiinta la noolaa ma ah ninkii dadka soo dhowayn jiray ma ah waa faarax kale waay faarixii aan naqaanay ma waa faarax kale war faaraxu xaalkaaga maxaa sidan u galay waxoogaagan xoolaha baa lu gooyey waxaad ogaataa allah tabaaraka wa tacaala sida uu saddexdaanu u imtixaanay baa adigana waxaa laguu soo diri karaa adigoo ladan miskiin baa laguu soo diri karaa xagga rabbi baa laga soo diri gaadh baa la leeyahay weydiiso hay ku yimid waa ku weydiiso warni waad ladanta anna miskiin baana gacanta waxiisa warkac meesha ka dhaqan yaa ku soo tusa meesha khalaas waaba intiiba ay ku socotay natiijadiiba waaba la gaadhay adigana waxaad u haysataa hawshu inay iska caadid qadarkaaga intaad garato ilaahay sunankiisana aad fahamto aafada ilaahay kaa saaray iyo dhibka uu kaa saarayna xusuusnow midda maanta aad ku sugan tahayna ka shukri ta soo socotana u diyaargarow oo ku talagal intaasi hadday kaa lunto maalku ku wareeriyo caafimaadku ku wareeriyo cilmigu ku wareeriyo kursiga aad maanta ku fadhido ku wareeriso war shalay miskiin jidadka taagtaagan baad ahay xagga rabbi baa tabaaraka wa tacaala ka timid oo markaasaad shago ku fadhiisatay wasiir baad noqotay mise madaxweyne war ninkii cabdilcasiis ahaye shalay aan naqaanay meelahan taagtay maqaayadaha ka shaahi jiray soo adiga ma ahayn maya xageed u aragtay war xageed u aragtay maba waa kaa meeshaasuu ka dhacay bini aadam wakaa maxaa duruustaa laynoo siinayaa duruustaa waxaa laynoo siinayaa in aan waxaan ahaan jirnayna xusuusanno ilaahay nicamkiisana ka shukrino nicamka rabbi tabaaraka wa tacaala haddaad u qirto ood ka shukrido oo waxay mudan tahay iyo jidkeeda mariso allah tabaaraka wa tacaala waa kuu daynaya waana kuu siyaadinaya waana kaaga raalli noqonaya leanna nabigeenu siduu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intaad cabitaan cabto ama cunto inaad ilaahay u mahad celiso buu raalli kaaga noqonaya kabadiya abaad ka batay alxamdu lilah luqmad cunto abaad afka gelisood liqday alxamdu lilah ilaahay raalli buu kaa noqday tabaaraka wa tacaala markaad rabbigaa ku aqoonsato nicmadana jidkeedii aad mariso rabbi tabaaraka wa tacaala aakhara raalli buu kaa yahay adduunkaba nicmadanna waa kuu daynaya waana kuu siyaadinaya lain shakartum laaziidannakum haddaad shukridaan waa laydiin siyaadinaya haddaad isla weynaato sooma ood isgaran weydo ood ninkii shalay aad isbedesho ood midab kale
يدقن كان للصوب بعد صومها إلهي تبارك وتعالى وكو عرونا يا الدنيا آخرة حولها النهين ميسيدا ويكرافيان إمسا حول لهان تيري وما أنت ميلها تاكتاغن إمسا مضح أهيت يا وما أنت ميلها تاكتاغن والإلهي تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس مدك قادوا مدء بيبوي حالده ربنا سيدا سوكوكي سكما ملاي مالك لضنتها إسقروا مالك عافمات قبطو إسقروا مالك أول لها إسقروا ربك كالشكر النعمة تبارك وتعالى الضومد ربنا واتكو امتحانا تهيئون حريصو أطر والضبيعات ونكسينية دقن ونكسينية قعان فران كل دقن صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة